macalin ardaydiisa tusiyay sawir laga sameeyay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa aatay oo la gooracay booliska dalka Faransiiska ayaa 4 qof u soo xiray dilka macalin taariikhda dhiga oo xalay lagu gooracay meel u dhow magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi. booliska ayaa sheegaya in weerarkaasi ay aaminsan yihiin inuu ahaa argoosi kadib markii macalinkaasi uu ardaydiisa u soo bandhigay sawir gacmeed la sheegay in laga sameeyay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa aatay. ninka weerarka geystay ayaa markii dambe waxa toogasho ku dilay booliska waxaana booliska ay baaritaan ku sameeyeen hoyga ninka loogu shakisan yahay weerarka waxaana xabsiga loo taxaabay 4 qof oo la sheegay inay xiriir dhow la leeyihiin 14 jirka la aaminsan yahay inuu ku dhashay dalkaasi Ruushka. weerarkan oo aad loogu hadalhayo Faransiiska ayaa la sheegay inuu ka dhashay cashir ku saabsan sawir gacmeedyo muran badan dhaliyay oo laga sameeyay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa aatee. macalinka ayaa la sheegay in ardayda muslimiinta uu ka codsaday inay fasalka ka baxaan markii uu ardayda kale tusayay sawir gacmeedyada. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dilka macalinka oo ka dhacay waqooyi bari ee magaalada Paris ku tilmaamay weerar argagixiso. Mr. Macron ayaa sheegay in macalinku oo aan weli la sheegin magaciisa loo dilay sawir xiriir xuriyatul qowlka. madaxweyne Macron oo booqday goobta ayaa macallimiinta u ballan qaaday in naftooda uu dalka difaacayo. dhanka kale Macron ayaa midnimo ku baaqay waxa uuna sheegay in marnaba aysan argagixisadu ka guuleysanaynin oo aysan kala qoqobi karin dadka Faransiiska. ninka lagu shakisan yahay inuu weerarkaasi geystay ayaa waxa toogtay booliska waxaana la soo wariyay inuu yahay 18 jir ku dhashay dalkaasi Ruushka waxaana haatan baaritaanka kiiskan la wareegay dacwad oogayaal qaabilsan la dagaalanka argagixisada. nin watay mindi weyn ayaa macalinka ku weeraray wada ku taala xaafadda lagu magacaabo Conflans Center Honorin isagoona madaxa ka jaray. ila booliska ayaa sheegay in marqaatiyaashu ay maqleen qofka weerarka geystay oo ku dhawaaqaya Allahu Akbar ama alla ayaa weyn sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. qofka weerarka geystay ayaa markiiba cararay laakiin bilayska maxalliga oo ay ku wargeliyeen dadweynaha ayaa durbadiiba soo gaaray goobta. saraakiisha ayaa ninkan kaga hortagay degmo u dhow Eragni waxayna u sheegeen inuu isdhiibo balse waxaa la sheegay bedelkiita inuu u hanjabay booliska taasi ayaa horseeday in ay toogtaan ninka.